السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دhowaada daawadayaal Ramadaan Mubaarak. barakooyinka Rabbi korkiina ha ahaatee. waa barnaamij aan ugu magac darnay taxanaha noloshii saxaabada, kaas oo aan ku soo qaadan doono hal saxaabi. waxaan wax ka taaban doonaa saxaabiga qiimaha badnaa Salmaan bin Farisi. waxa uu ahaa nin dhalinyaro oo Farisiya. waxa uu ku noolaa magaalada Jayaan ee waddanka Iiraan. aabbihii waxa uu ahaa ninka madaxda ka ahaa magaalada. waxa uu ahaa aabbihii midka ugu lacagta badan iyo midka ugu magaca dheer. Salmaan waxa uu ahaa midka ugu jecel yahay dadka oo dhan, heer uu gaadhay inuu guriga xabsi uga dhigo cabsi uu ka qabo inuu meel kala tago, iyo jeclaanshaha uu jeclaa inuu agtiisa ku noolaado. waxa uu ku dadaalay Salmaan barashada diinta majuusiga, maxaa yeelay aabbihii ayaa ahaa ragga ugu sarreeya. waxa uu ahaa nin dhalinyaro oo firfircoon, heer uu gaadhay in loo xil saaro inuu dabka shido, dabkaas oo ahaa kuwa caabuda. aabbihii waxa uu ahaa nin ganacsadaa. maalin maalmaha ka mida ayuu ka mashquulay ganacsigii, ha yeeshee waxa uu u diray Salmaan dukaankii. Salmaan inta uu waddada sii socday waxa uu arkay niman ku cibaadaysanaya kaniisad. ileen waxa uu ahaa mid aan arkin diin kale, midda uu haystay maahane. waxa uu weydiiyey nimankii diintan meesha ay ka timi. waxa ay ku dhaheen Shaam ayaa laga helaa dadkii aqoonta u lahaa diintan. waa uu jeclaayay diintii Nasaarada. waxa uu dhahay, wallaahi baan ku dhaartee middan ayaa ka khayr badan midda aan haysanno ee dabhurinta ah. maalintii oo dhan ayuu la joogay, waana uu dhegaysanayay waxay akhrinayeen. ma uusan tegin meeshii aabbihii u diray ee ganacsigii. markii ay cadceedu dhacday waxa uu tegay gurigii. waxaa dhexda kaga hor yimaaday aabbihii. waxa uu ku dhahay, Salmaanow, ka waram ganacsigii. waxa uu dhahay Salmaan, aabbow, waxaan arkay dad ku cibaadaysanaya kaniisad. waxa ay cajab gelisay cibaadadoodii. kama aanan tegin ilaa ay cadceedu ka dhacday. waxaan dukaanka ogahay ma jirto. odaygii waa naxay, waa uu argagaxay. waxa uu sameeyey Salmaan marka uu maqlay dukaanka maanta baaqday. waxa uga daran wiilka diinta kale ku soo baraarugay. aabbihii waxa uu dhahay, wiilkaygiiow, diinta aad maanta dhegaysatay wax khayra ma leh. diintaadiyo midda aabbayaasha ayaa ka khayr badan. waxa uu dhahay Salmaan, kallaa, wallaahi baan ku dhaartee diintooda ka khayr badan. diinteenna intaasoo dhan ayaan ku soo dhex jiray, toodana maanta oo dhan ayaan dhegaysanayay, toodaa naga khayr badan. aabbihii waa uu cabsaday. waxa uu ku hadlay Salmaan marka uu maqlay. waxa uu ka cabsay inuu diintooda raaco. guriga ayuu ku xidhay, silsilad ayuu lugaha kaga xidhay. haddaad keentay in aad kaniisado kala gasho oo aad diimo kale soo dhegaysato. markii uu helay Salmaan fursad, waxa uu u diray fariin nimankii Nasaarada. waxa uu ku dhahay, haddaad aragtaan safar u socda Shaam isoo ogeysiiya. wax yar kadib waxaa loo soo sheegay in beri safar u socda Shaam. habeenkii oo dhan ayuu waday sida uu iskaga furi lahaa silsiladdii. waa uu ku guulaystay furitaanka silsiladdii. safarkii waa uu raacay isaga oo markaa isqarinaya. waxa uu ku dhahay, ninkii ayaa ugu khayr badan, ugu fadli badan diinta Nasaarada.
waxa ay ku dhaheen ninka usquf la dhaho ee kiniisadda madaxda ka ah ayaa ugu khayr badan. ninkii loo tilmaamay ayuu u tegey, waxa uu ku dhahay, waxaan jeclaaday diinta nasaarada, waxaan rabaa in aan agtaada ahaado, waxaan rabaa in aan kuu khidmeeyo oon kula tukado, diintana aan kaa barto. ninkii waxa uu ku dhahay, soo gal, gurigaygana imo. wax yar markii uu la joogayba waxa uu ogaaday inuu ninkan yahay akhlaaq suuq, nin xun oo khaa'ina. ninkani waxa uu ahaa mid dadka fara sadaqada in la bixiyo, in dadka xoolo laga soo uruuriyo. xoolaha la soo uruuriyo isaga uu baakaysanayay ilaa uu wax badan ka uruuriyey. Salmaan waxa uu dhahay, waan dhibsaday ninkan khaa'inkaa, ha yeeshee ma aan garanayn meel kale oon tago. wakhti aan sidaa u fogeyn waxaa dhintay ninkii khaa'inka ahaa. waxa ay bilaabeen nimankii nasaaradu in ay aasaan iyagoo u ooyaya. Salmaan waxa uu dhahay, ha u ooyana, kan khaa'in ayuu ahaa, xoolaha uu idiga soo ururiyo sadaqahaan idiga soo qaado isaga ayaa kaysanayay, masaakiintana waxba kama uusan siinaynin. waxa ay ku dhaheen nimankii nasaaradu, sidee ayaabaad ku ogaatay? yaa kuu sheegay waxaas? waaba la ii handaday. waxa uu dhahay, waxaan idin tusayaa kanzi, kaydkiisii meesha uu ku ururin jiray lacagta iyo xoolaha uu ka soo ururiyo masaakiinta. waxa uu dhahay, waxaan idin tusayaa kanzi, kaydkii uu ku ururin jiray xoolaha. waxa ay ku dhaheen, kaalay oo na tus. isla markaa waa uu tusiyey meeshii. waxa ay ku arkeen lacag fara badan, dahab iyo dinaar iyo waxyaabo kale oo badan oo ka buuxa meesha. marka ay arkeen waxay dhaheen, wallaahi baan ku dhaarnay, maba aasana kan, dhagax bayna la dhaceen. waxa uu dhahay, maan arag nin adduunya ka nacab, aakhirana ka jecel, habeen iyo maalinna rabbigii uu cibaadaysanaya. waan jeclaaday jacayl aad u daran, waan la joogay wakhti aad u badan. geeridii marka ay ku soo xaadirtay waxa aan ku dhahayaa, fulaanow, yaad iigu nasteexaynaysaa oon dabadaa u tagaa? waxa uu ku dhahay, wiilkaygiiyow, garan maayo nin haysta diinta aan haysto oo aanan beddelin. ilaa nin ayaa jira kaas oo ku nool magaalada Mawsin, waddanka Ciraaq. ninkaasi ma uusan beddelin diintiisa, orodoo u tag, ninkaas ayaan khayr ku ogaayay. Salmaan waxa uu bilaabay inuu gudagalo u tegitaanka ninkaas. waa ninkii saddexaad. markii uu u tagay ninkii waxa uu ku dhahay, Salmaan, waxaa ii soo dardaarmay ninkaas. waxa uu igu dhahay, ninka keliya ee diinta saxda ah haysta waa ninkaas, ee u tag, sidaas ayaana kugu yimaaday. ninkii waa uu soo dhoweeyey, waxa uuna ku dhahay, soo dhow wiilkaygiiyow. muddo ayuu la noolaa ilaa uu khayr badan ka faa'iiday. markii ay geeridii ku soo xaadirtay ninkii, waxa uu Salmaan dhahay, waxaa kuu yimaaday amarkii rabbiga, xagga rabbiga ayaad aadaysaa, ee yaad ii dardaarmaysaa dabadaa inaan u tago. waxa uu ku dhahay ninkii, wallaahi baan ku dhaartee, garan maayo axad dunida dusheedas oo diintiisi saxa u haysta, ee waxaan ogahay nin jooga magaalada Nasiibeen, ee orod oo ninkaa u tag. Salmaan waxa uu dhahay, marka uu ninkii dhintay waxa aan aaday ninkii uu ii tilmaamay. ninkii marka aan u tegay waxaan uga waramay khabarkaygii. waxa aan ku dhahay, ninka ayaa ii soo kaa dardaarmay. ninkii waxa uu ku dhahay, kaalayoo ila joog, aniga agtiisa ayaan ku nagaaday, wakhti badan ayaana la noolaa. waxa aan ka helay wanaag iyo khayr badan sidii labadiisii saaxiib ee ka horreeyay oo kale. wallaahi baan ku dhaartay, wakhti yar kadib waxaa ku soo xaadirtay geeridii. waxa aan ku dhahay, waad ogtahay xaaladayda, nin qariiba oo halkaa ka yimid ayaan ahay, ee ii dardaaran nin kale oo wanaagsan oon u tago. waxa uu dhahay, wallaahi baan ku dhaartay, garan maayo axad dunida dul saaran oo diinta si saxa u haysta, ee magaalada Camuuriiladho ninka jooga, ninka aad haddii aan dhinto. ninkii ayaan aaday ayuu dhahay Salmaan. waxaan uga warramay xaaladaydii. waxa uu ugu dhahay ninkii, soo dhow oo agtayda ahaw. ninkaa agtiisa waxaan ka helay khayr fara badan iyo wanaag, iyo sidoo kale adhi iyo lo ayaan ka helay. wax yar kadib waxaa ku soo xaadiray mawdkii. waxa uu ku dhahay Salmaan, ii dardaaran, xaaladayda waad la socotaa. ninkii waxa uu ku dhahay,
wallaahi baan ku dhaartay garan maayo qof maanta dunida dul saaran oo diintii ku hadhay, aniga ayaa ugu dambeeyey. laakiin waxaa soo dhowaatay waqtigii uu soo bixi lahaa nebigaas oo laga soo saaray dhul carbeed, nebigaas oo lala soo dirayo diin Ibraahim. nebigaas waxa uu ka haajiri doonaa magaaladiisa, waxaana u haajiri doonaa magaalo timir badan. tilmaamta waxa uu ku haystaa kitaabkiisa. waqtiga uu nebigaas soo bixi lahaa ayaa la joogaa. nebigaasi waxa uu leeyahay calaamaad aan qarsoomayn. sadaqada ma cuno, hadiyadana waa uu qaataa. labadiisa garab dhexdooda waxaa kaga qoran khaatimul ambiyaa. haddaad awooddo inaad aad dhulkaa carbeed aad. ninkii marka uu dardarankaa siiyey waa uu dhintay. salmaan waxa uu dhahay, waan joogay magaaladii ilaa muddo, waxa aan raadinayay safar carbeed. waan helay safarkii carbeed, waxaana ku dhahay, haddii aad kaxaysaan oo edegeysaan dhul carbeed, waxaan idin siinayaa xoolahayga oo dhan. waxay ku dhaheen, intaa uun miyaa? waanu ku kaxaynanaa, nagu soo wareeji xoolaha. halkaas ayaan ku joojinaynaa qaybtan insha Allah. la soco qaybta dambe.